hardanka siyaasadda Soomaaliya ayaa weji cusub yeeshay kadib markii baarlamaanka federaalka ay u dhawaan kalsoonida kala laabtay golihii xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo talada haysay muddo 3 sano ka badan iyagoo ku eedeeyay inay ka gaabisay waajibaadkii loo igmaday oo ay ugu horeysay inay dalka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah dhamaadka muddo xileedkeeda. go'aanka baarlamaanka oo siyaabo kala duwan looga falceliyay ayaa ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo dalku u galay xaalad kala guur ah maadaama bilo ay ka harsan yihiin muddadii jiritaanka dawladda federaalka ah. dhanka kale xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre ayaa shaaca ka qaaday khilaaf in muddo ah huursanaa u dhixiyay isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo salka ku hayay ismaandhaaf la xiriira hannaanka doorashooyinka dalka oo madaxweynuhu dalbaday in dib loo dhigo halka ra'iisul wasaare Khayre uu ka gows adeegay. madaxweyne Farmaajo ka shaqal qaadanaya warkii ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaasoo meesha ka saaray suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo dabayaaqada sanadkan dalka ka dhacda ayaa soo jeediyay in dib loo dhigo doorashada taasoo micnaheedu yahay in golayaasha dawladda muddo kordhin loo sameeyo. laakiin soo jeedintaasi waxaa ku gacan sayray ra'iisul wasaare Khayre oo war ka soo baxay golihiisa wasiirada si cad loogu diiday in dib loo dhigo waqtiga lagu ballamay in doorashadu dhacdo. Farmaajo aad uga carooday diidmada qayaxan ee uu kala hor yimid Khayre isla markaana dareemay inuu ku jiro daban siyaasadeed oo loo maleegay ayaa durba bilaabay olole ka dhana Khayre iyo xulafadiisa oo u arkay khatar ku soo foolay kursigiisa wuxuuna shirar albaabadu u xiran yihiin la yeeshay xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka kuwaasoo sida caadadu ahayd gudagalay hawlay in badan ku soo ilmo korsadeen balse muddo laga tutuubay taasoo ah mooshinka Muqdisho lagu karinayay waxaa hareer socday kulan ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen hogaamiyaasha 5 dawlad goboleed oo ka tirsan federaalka ayna ku jireen rag miisaan leh haddana ay siyaasadda ku culoobeen Farmaajo waxaana halka ilbaad ka helay ra'iisul wasaare Khayre oo inkastoo uu gacan ku lahaa taladii lagu wiiqay awoodda dawlad goboleedyada haddana u muuqday in madaxweynaha uga faraadhuuban galaangalka hogaamiyaashan oo ay intooda badan arrimaha doorashada isku aragti ka yihiin. kadib dhowr maalmood oo wada hadallo ah madaxda maamul goboleedyadu waxay si buuxda isugu raaceen in dalka laga qabto doorasho xilligeedii ku dhacda waxayna soo jeediyeen in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ka heshiiyaan hannaanka doorashada taasoo dhabarjab ku noqotay hindisihii Farmaajo dhanka kalena xoojisay go'aankii xukuumadda Khayre. laakiin hadalkaasi waxaa ka hor yimid guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah Maxamed Mursal oo isagoo sida muuqata ka gows haysta madaxweyne Farmaajo ku dooday in go'aanka la xiriira hannaanka doorashadu uu ka go'o golaha shacabka oo qura isla markaana aysan dawlad goboleedyadu wax tala ah ku lahayn wuxuuna diidmadaasi u cuskaday xeerka doorashooyinka qaranka ee dhowaan la meelmariyey kaasoo loogu talagalay in looga gudbo gorgortanka awood qaybsiga qabiilka ku salaysan. maalmo kadibna waxaa magaalada Dhuusamareeb gaaray madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo kala socda waxaana halkaas ka furmay kulan dhex maray dawladda federaalka ah oo laba garab ah iyo maamul goboleedyada federaalka xubnaha ka ah. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu geed dheeriyay mid gaabanba u fuulay sidii uu madaxda maamul goboleedyada ugu qancin lahaa in dib loo dhigo xilliga doorashooyinka laakiin taas waxaa ka soo horjeestay inta badan maamul goboleedyada oo isugu jiray kuwa ra'iisul wasaare Khayre oo gacantiisa ku samaystay iyo kuwa fallaaga ah oo aysan in muddo ah dawladda dhexe dab kala qaadan. muddo markii la soo firdhiyay isla markaana wax garowshiya ka waayay madasha madaxweyne Farmaajo wuxuu ku qasbanaaday inuu aqbalo doorasho waqtigeeda lagu qabto iyadoo loo mariyo hanaan la isla ogol yahay oo laga wada xaajoodo. madaxweynaha uu wajigabax kala kulmay shirkii Dhuusamareeb ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho wuxuuna durbagalka kala baxay seef laba afla oo baalasha uga rifayay Xasan Cali Khayre. maalintii xigtana waxaa aqalka baarlamaanka ka dhacay wax loogu yeeray shirqool siyaasadeed oo xilka loogu xayuubiyay ra'iisul wasaare Khayre kadib markii 170 xildhibaan oo fadhigaasi soo xaadiray ay kalsoonida kala noqdeen golihiisa xukuumadda. guddoomiye Mursal oo qeeldayay go'aanka baarlamaanka ayaa wuxuu sheegay in xukuumaddu ku fashilantay gudashada waajibaadkeeda sida inay ka gaabisay dhismaha ciidan qaran oo suga amniga dalka iyo doorasho qof iyo cod ah oo la qabto. Xasan Cali Khayre oo gelinkii dambe isla maalintaas Muqdisho halhaleel ugu soo laabtay ayaa talaabada baarlamaanku xilka uga xayuubiyay ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka wuxuuna ku dhawaaqay inuu iskiis xilka isaga degayo isagoo ku afgobaasiday inuu dadweynaha Soomaaliyeed uga turayo qararaasa siyaasadeed iyo in dib loo noqdo. intaas kadib madaxweyne Farmaajo wuxuu u tafaxaytay sidii uu kursiga u xigsan lahaa waxay doontaa ku qaadatee halka Xasan Cali Khayre uu durba bilaabay abaabul siyaasadeed oo ku tidcayo gaashaanbuur ay lafdhabar u yihiin maamul goboleedyadu si uu talada dalka ugu soo laabto. isku soo wada duubo hardanka siyaasadda dunida hadba ninkii tun weyn ayaa reerka u hara laakiin marka la fiiriyo duruufaha dalku uu ku sugan yahay hirtida Farmaajo iyo haraatada Khayre cidnadana uguma jirto kasokow inay wiiqayso danaha qarankana waxay salfan kartaa iyaga qudhooda waayo jaafatiliqa waqtigiisi la joogin
wuxuu labadoodaba u nuglayn karaa inay mar qora masraxa iskala dhacaan. warbixintan oo dhammaystiran ka daalaco xuraan.com isha xogaha dahsoon.